kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka deegaanka Soomaalida war degdeg ah abaarasaaka 8 subaxnimo shacabka ku nool xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee maamulka magaalada Jigjiga iyagoo si aad ah u muujiyay sida ay uga soo horjeedaan masaajidadii dhawaan lagu gubay meel kamid ah dawladda deegaanka Amxaarada dhacdadaasi oo guud ahaan badalka siyaabo kala duwan looga falceliyay iyagoo shacabka ka faa'iideysanaya xuquuqda dastuuriga ah isla markaana in qofka muwaadinka uu si nabadgelyo ah u sameyn karo isu soo bax hase ahaatee iyadoo isu soo baxaasi uu ku dhamaaday si nabadgelyo ah shacabkana ay bilaabeen inay qaadaan wadooyinka ka baxa garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga si ay guryahooda dib ugu laabtaan ayaa qayb kamid ah dadkaasi oo ujeedo gaar ah lahaa waxa ay isku dayeen in ay weeraraan goobaha macbadyada dadka Kiristaanka ee ku nool maamulka magaalada Jigjiga iyo goobaha ganacsiyada bangiyada meheradaha waaweyn iyo ganacsiyada kale isla markaana isku dayeen inay qalqal galiyaan isku socodka iyo deganaanshaha maamulka magaalada Jigjiga dadkaasi oo ay ujeedadoodu ahayd in ay abuuraan isku dhacyo xagga diimaha ah hase ahaatee ciidamada ammaanka dawladda deegaanka Soomaalida oo goobahaasi hore ugu sugnaa ayaa ka hortagay iyagoo adeegsanaya sunta ka ilmeysisa dadka isla markaana rasaas kor u riday si ay dadkaasi u kala kaxeeyaan haddaba waxa arintaasi telefishinka deegaanka Soomaalida uga warbixiyay hoggaanka nabadgelyada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Caadil Xasan Cabdi oo ku sugnaa fagaaraha taalada sayidka ee bartamaha maamulka magaalada Jigjiga bismillah waxaan doonayay wax yar inaan ka iraado dhacdo maanta magaalada Jigjiga ka dhacday magaalada saad artaanba waa nabadgelyo waxa weeye dad baa intay soo abaabuleen shacabka qaybiisa kala duwan baa waxay dhaheen masaajidadii lagu gubay gobolka Goojam qaybo kamida inaan u muujino inaan ka xunnahay taageera ayaan rabnaa marka dawladda soo ogeysiiyeen arintaas marka waxaan ku raadaayay maadaama xuquuq dastuuri ay tahay shacabku waxaan ku raadaayay in uu si nabadgelyo ah u banaan baxo waxa weeye saaka markii stadiumka la isugu yimid banaanbaxaas dad fara badan ay isugu yimaadeen waqtiga laga soo dareeray ayaa waxa jira dad qaswadayaal ah oo amniga doonaya inay faraha ka bixiyaan ayaa waxay bilaabeen rabshad iyo dhagax tuur kadibna waxay u dareereen goobaha ay kaniisadu ku yaalaan magaalada Jigjiga arintaas oo waxaan ku raadaayay hay'adaha nabadgelyadu si fiican run ahaantii ay uga howlgaleen waxa weeye protection ama ilaalo fara badan baa loo sameeyay goobihii marka dadka qaswadayaasha ay rabeen inay ama dukaamada iyo meelaha ganacsiga goobaha ganacsiga inay boobaan kaniisadaha kale inay gubaan banaanbaxaas rabeen uga faa'iideystaan arinta marka waa la xakameeyay magaalada Jigjiga maanta waa nabadgelyo marka intaasaan doonay shacabka inaan u sheegno fariinta aan rabno inaan gudbino marka waxa weeye dadkan waxaan ku raadaayay mar walba doonaya inay si nabadgelyo u banaan baxaan sababaha dawladdu ay u diidan tahay waxa weeye dadkan uma bisla in waxaan ku raadaayay si nabadgelyo inta isugu soo baxaan ay dareenkeeda u muujiyaan wixii marka ay ka cabanayeen intay muujiyaan ay kala dareeraan uma bisla waxa weeye marka in laga waantoobo rabshadaha iyo waxaan ku raadaayay in private property-ga ama hantida dawladda oo kale in dhibaatooyin iyo khasaare loo geysto shacabka in la dhibaateeyo lama baahna hay'adaha nabadgelyadu marka waxa weeye waxay qaadi doonaan wixii inta ka dambeeya talaabooyin ku aadan sareynta sharciga in la ilaaliyo cidii qaswadayaasha ahaa in waxaan ku raadaayay sharciga la horgeeyo waana la wada garanayaa goobahay joogaan waxaan ku raadaayay in laga soo qabto booliska waa la amray marka shacabku inay la shaqeeyaan hay'adaha nabadgelyada oo dadkii dhibaatada maanta Jigjiga isku dayay inay ka geystaan inay farta inta ugu fiiqaan si sharci loo horgeyn lahaa inay kala shaqeeyaan intaasaan shacabka faraynaa hadda kadibna laga waantoobo nabadgelyo darradu cid walba way saameynaysaa marka cid dambe oo waxaan ku raadaayay uga faa'iideysta ama arrimo siyaasadeed ama waxaan ku raadaayay amni darro rabta inay ka sameeyso deegaankeenna marnaba u ogolaan mayno marka arintaas shacab iyo ka dawladahan aan gacmaha is qabsano aad baa u mahadsantiin waraysiga hoggaanka nabadgelyada kadib waxa ilaamaha ammaanka dawladda deegaanka Soomaalida noo xaqiijiyeen inuu jiro dhimashada hal qof warbixinada la xiriira arintan waxa daawan doontaan waxyaabaha ku soo kordha xilli tabinteena wareed ee dambe